teknoolajiyaddu waxay ku socotaa xawli ayadoo si maalinla ah u qaabaysa dunida aan ku noolnahay. waxay fududeysaa sida aan wada xiriirno qaabka aan wax u kala iibsado iyo hanaanka aan wax u barano. waxay sidoo kale saameyn xooggan ku leedahay loona adeegsadaa qaybaha kala duwan ee warshadaynta, caafimaadka, dhismaha iyo maaliyadda. markii la joogo Soomaaliya, teknoolajiyadda iyo maaliyadda oo iswata loona yaqaano fintech ayaa door lixaad leh ka ciyaara horumarka dhaqaale iyo midka bulsho, taasoo sahashay in adeegyada maaliyadeed qofka Soomaaliga ay heli karo mar walba iyo meel walba. waxaa si isku wada mid ah u isticmaali kara heerar kala duwan ee bulshada sida madax, maalqabeen, sabool, waayeel iyo dhalinyaro. Zed, EVC Plus, Sahal, Premier Wallet, Wafi, eDahab, Jeeb, Deeqtoon, MyCash, eBesa, eDir, Braad, T-Plus iyo kuwa kaleba waa magacyada ay dhagaheennu maqlaan maalin kasta. waana adeegyada ku shaqeeya lacagaha la isugu diro mobilka ama elektroonikada. waana adeegyo maaliyadeed oo ku dhisan teknoolajiyadda dalabaysan, kuna fududeeya aad ku dukaamaysato, tagsiga ku raacdo, ku bixiso biilasha, isla markaana aanay la'aantood suurtagal ku ahayn inaad tallaab qaado. haddaba waxaan kugu casuumaynaa bandhigga guulaystayaasha Soomaaliyeed oo ah madal sanadle ah soona agaasinta shirkadda Hormuud Telecom. sanadkan waxaa diiradda lagu saari doonaa fintech Soomaaliya ama financial technology, waxaana xoogga la saari doonaa caqabadaha ku gadaaman, fursadaha ka jira iyo mustaqbalka fintech Soomaaliya waxa laga filan karo. wuxuu ka dhici doonaa howlka Sahal bartamaha bisha Oktoobar sanadka 2024. ka soo qaybgalkaagu waa inoo muhiim.